waxaa faahfaahinno dheeraada ka soo baxayaan dhulgariir cabirkiisu yahay 4.8 heerka cabirka dhulgariirada oo xalay ku dhuftay gudaha badda cas meel qiyaastii 138 kiiloomitir u jirta magaalo xeebeedka Bareeda ee gobolka Bari sida laga soo xigtay waaxda sahanka dhulgariirada ee dawladda Mareykanka waxa uu dhulgariirkaasi gaaray 10 kiiloomitir oo gunta hoose ee badda ah waxa uu dhacay xalay markii saacadu ahayd 10:15 daqiiqo ee fiidnimo inkastoo aan la soo sheegin khasaare haddana meesha uu dhulgariirkaasi saameeyay waa meel ay gaaraan doomaha kalluumaysiga Cali Shire Maxamuud Cusmaan gudoomiyihii hore degmada Caluulaha ee gobolka Bari oo raadiyo kulmiye ugu warbixiyay inta uu ka ogyahay dhulgariirkii xalay fiidkii ka dhacay badda cas ayaa sheegay in xalay dhulgariirkaasi laga dareemay magaalada Bareeda inkastoo ilaa haatan aan la ogeyn khasaaraha uu geystay goobta bisheeda saaray oo doonli saaray ma aan arag laakiin waxay yiraahdeen waxaanu maqalay sangarka ayaanu maqalay waana garan weyn labadina ay laga tahay sida uu dhagaa u taagtaageynaa hase yeeshee kulli inta gaarka yaga ah oo nagu dhow wax ka dhacay oo dhiga oo halkan oo ka soo sheegay ma jirto laakiin hadee waxa weeye goor habeenimo dhacdo iskaarsiintuna waa huntahay baaritaan badan iyo wax barahaas raayo khasaaro soo gaartay iyo ilaa bari ilaa caawa ilaa galabtada warka kuuraha laga helaya laakiin dabcan waa khasaaro way geysan karaa laakiin baaris may u baahan tahay hadda waxa weeye magaalooyinka kale iyo tuulooyin kale iyo in wax la weydiiyo yaa badda ku maqnaa iyo gaadiid maxaa maqan iyo waa magaalo xeebeed qadiimi halkaas ku taal buur hoosteedna waa taal sida labada badood iskaga darmaanayna ilaa 20 kiiloomitir buu u jiraayo badda cas iyo badda Hindiya meesha isaga yimaadaan ma jiraan wali wax wara oo ka soo baxay maamulka Puntland kaasi oo ku aadan inay faahfaahin ka bixiyaan dhulgariirkii xalay ku dhuftay qaybo kamid ah biyaha gobolka Bari